تاني أفر سكر ناس أبي ما هنا أهل السنة إذا واحد يحوج سارتي إن أي مركز جوابها أي كسر ناد أي كسر سجناته إلا أي هاتنا وحقيقة وما هينو إن أهل السنة أي مركز جوابه ذي أي كبحد سببته أحصل لقي مقالة وأي جوجان لامجي وأي جوجان جوابه كلا أي كسر نايان وأي كسر جيهين وحنا صورة قال هذه ودقال كسيدان كسي سعودة إن أهل السنة أو سوقر تمركز ساند ولما محل ده جري قرمت حالة مقالة أي أهمية كعسن وكابرتميه لامي aynu live si toos ah uga jirnaa dagaalka awoodiisa ama xooggiisa dadku waxay saadaalinayaan in galabta uu dhici karo inkastoo hadeertaanba aan waxba la isku reeban ciidanka ahlu sunno ayaa mar walba isku dayaya in ay saldhiga markaas gacanta ku dhigaan inkastoo ay xoogag ayaga ka tirsan ay ku sugan yihiin marka saaxiib yaal xaaladdu waa sidaas bal jawigan maanta maxaa kaaga baxay qaybta hoose ee commentiga aragtidaada igu reeb abaay xabaddu wallaahi waa halis xabaddan gurceel ka socoto maanta wallaahi waa halis وهي حالته وعدكتها السحبية وهي حالته يا أحمد أبك waxaana suuragal ah in dagaalkan oo maanta markaas si weyn u socdo in ay halis tahay si lagu kala baxaan ay adagta waayahay xaaladda ayaa ah mid halis ah gudaha ayaan soo galnay sababtoo ah halka aynu joogno ay xabaddu haatan ka bilaabatay waa ka dad aad u fara badan ayaa halkan ku sugan oo markaas iyaga naftooda meeshan ugala u soo galay si ay isaga ilaaliyaan xabadaha soconaya waa ka dadkaas aad ku fara badan ayaa gudaha ku jiro وكا صاحبي اللايف كشير جريا سي أينو حالتها هلسته إيه قرعة كجرا إذا كوجو صوّدنا ويا هاي أيضا يا مركز هريرها نجدجي وأنا أذكرها إن بنانك الله بحر وحين سوق اللي يبديه أينو مركز هركب بحنة وهلس مركان إن بنانك الله بحر سببته لنا ولي بعيدا أي مركز تاجن وهي إلهي هسقرو أرنتان إلهي هدحقلو وأذكرها والله حالة dhammaan live share gareeya dhimashada ama geerida dad badan ayaa la soo warinaya iyo dhaawaca dad kale oo fara badan hanti badan ayaa burburtay ayaa la leeyahay guriyo badan oo magaalada ku yaalana waxa la leeyahay qaarkood hoobiyaal ayaa ku dhacay ilaahay marka ummadda ha amaansado xaaladana ilaahay ha dajiyo waa ka dhinac waliba ay haatan xabadu ka socotaa way adag tahay si magaalada ama banaanka hore loogu baxo sababtoo ah xaaladda ayaa ah mid adag وهي حالته وأدق تهاي دنك ما طبعا وحال ليه هاي عيدا هيرشبيلة يا كسو قلي كرا
ciidanka sufada ayaana magaalada markaasi dhan kale ka aaday si ay ciidanka Hirshabeelle la filayo in dhanka Matabaan ay ka soo xaroodaan ay isaga caabiyaan xaaladdu waa adag tahay saaxiibayaal ilaahay ummadda ha amaansado dhimasho ayaa la soo warinayaa waayahay waayahay xaaladdu waa adag tahay ciidan ayaa la leeyahay dhanka Hirshabeelle ayay ka soo galeen oo magaalada ay u soo dhow yihiin ahlu sunnana waxa ay magaalada horteeda ama dhanka Matabaan looga soo galay ay geysay ciidan fara badan si ay ciidankaasi isaga caabiso xaaladdu marka waa adag tahay saaxiibayaal allow sahal ay xaaladdu maraysaa ilaahay ummadda ha amaansado waa maqlaysin xabadaha la isku adeegsanayo ma ahan rasaas fudfudud waa qoryaha loo yaqaan hoobiyaha seekawga iyo nooca kale ee markaasi daryankiisa si weyn loo maqlo suuga iyo markaasi biitemka ayay dad markaasi si weyn qoryaha ugu xeel dheer inoo sheegayaan in la isku adeegsanayo waayahay bannaanka hore waa sidaas Hirshabeelle Soomaa Hirshabeelle Soomaa waayahay ahlu sunna dhinac waliba waxay ku fidisay ciidan fara badan waxaadna moodaa in ahlu sunna ay magaaladan si weyn ugu dagaalami doonto khasaaraha labada dhinac ayaa markaas u eg mid dhinacyadu ay khasaaro kala duwan uu soo gaaray waayahay saaxiibkan ayaa inala jooga dabcan muuqaalkiisa idin tusamayno balse codkiisa saaxiib soo dhawow bal magacaaga magacaygu waa Shaafici Jaamac Cabdi magaalada Saaka waxaa ka bilowday dagaal u dhaxeeya ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyo dawladda dadka shacabka ahay baa qasaaro kala gedisan ka soo gaareen waxaan ugu baaqi lahayn dawladda federaalka waddanka iyada mas'uulka ah in ay joojiso dagaalka maadaama waxa la dagaalay dadka dawladda ay u ahayd ay tahay xilkasnimo in wax ku soo dhameeyay laga rabaa waxaan ugu baaqaynaa si degdeg ah in dagaalka lagu joojiyo carada iyadoo horay roobab kala duwan uga dageen ayaa dadkii banaanka barakac dhibaato ku haysta umaasantii waayahay dagaalka ayaa weli socdo waa ciidankii dagaalka ayaa weli waa mid markaas xoogaysanaya soo xarana waa la tahay waayahay meesha u xumeed abid ayay maraysaa waa kaa boora kaca meesha ugu xumeed abid ayay maraysaa saaxiibayaal waa halis maanta magaalada ilaahay ummadda ha kala badbaadiyo meesha waayahay meeshii ugu darneed ayay ka bilaabatay waayahay meesha ugu xumeed abid ayay maraysaa saaxiibayaal waa kaa dadkii ayaa dhammaantood fadhiistay waana halis meesha aynu ku jirno waayahay halis waaye halka aynu ku jirno waayahay waayahay xaalad halis ah ayaynu haatan galnay ilaahayna waana badbaadisho sababtoo ah meeshii aynu joognay ayay markaasi xabaddu ay ka bilaabatay ciidanka meeshaan idinkaga muuqanaya ma ahan ciidan labada dhinac ka tirsan waa ciidan shirkadda Beder markaasi dabaqa waardiyeysanaya waay waa ciidankii shirkaddan Beder aynu ku sugannahay ilaalinayay waayahay xaaladda ayaa ah mid halis ah madaxana bannaanka looma bixi karo waa halis joogi
راس وقدي وقدي يلبي هذا ما أصلي هني عيد الدولة حقيقة صداتين waayahay ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan militariga Soomaaliya qaybta 12aad ayaa bartamaha laamiga hadartan markaas ku sugan dagaalkuna waa culus yahay oo xabadda markaas si kulul ay isugu dhacaysaa maanta Gurceel halka aynu ku sugannahay waa Gurceel ilaahay ha kala qaboojiyo wax faahfaahina wali lama hayo qasaaraha dagaalkan ka dhashay balse dagaalka ayaa ah mid culus saaxiibayaal waa ka magaaladii aynu ku sugannahay Gurceel aheed waa magaalada Gurceel waa ka dhanka quraca loo yaqaan Xadiyacad oo ay dadku yaqaanaan quraca Xadiyacad gadaashiisa ay hadartan xabadu ka socotaa walina cid magaaladan ku hartay iyo cid ku kala baxday inta uma jiraan waa la isku haystaa wali magaalada ahlu sunna iyo galmudugana isku dagaalaysa xaaladuna waa culus tahay oo meel xun ay xaaladu maraysaa ay waayahay dagaalka ayaa ah mid xilliga ka dambeeya markaas si qaraaraya saaxiibayaal sheergareeya muuqaalka dadka hadda toos u daawanaya page-ka Maxamed Socdaal qoyar socod live-ka hala sheergareeyo dhammaan saaxiibayaal waxa xaaladdu haatan ay maraysaa meel halis ah xilli walibana khasaarahu waa uu sii kordhayaa sida ay dadku inoogu sheegayaan magaaladana aynu ka dareemayno goob ganacsi iyo goob cunto intaba ma furno xaaladuna waa kala carar ciidanka dawladda iyo ahlu sunna ayaanu ku dhex dagaalamaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud sheergareeya dhammaan live-ka saaxiibada daawanaya waa ka halkaas korkeena ay ka dhacaysaa xabadu waayahay
waayahay ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna cid hadda gacan sarrayso oo la dhihi karo waa gacan sarraysa lama arko laakiin xaaladda ayaa ah mid cakiran xilli walibana dagaalku waa uu sii xoogaysanayaa saaxiibayaal muddo ku dhow 2 saac ayaynu live-kan ku jirnaa si toos ah ayuuna dagaalku u socdaa waayahay xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran waana dagaalka ayaana xilliga ka dambeeya sii xoogaysanaya marka saaxiibayaal dagaalku hadda wuxuu eg yahay mid la isku duhursaday oo duhurkii salaaddii duhur ayaa markaasi fooda saaran waa maqlaysaan fila hoobiyaha iyo qoriga sabanka loo yaqaano ee dhaca أحمد واقف مرة واقف يقول ما شاء الله ما له فكرة. دقيقة كم. أوقف حدث كيس أنا. تعمل هني فريق جيرتا. حاجة شو بحسها شو صار؟ ما دايرة هذا رأيي فيرا يشتري ما أنا ناقل يشتري ما. waayahay xaaladda ayaa ah mid aad u halis ah dameeradii arkay magaalada waa isaga carareen magaalada oo dhan ayaa u eg mid ayada dhan qiic in markaasi uu ka daadsan yahay aalamoodid meel walbana waxaa laga dareemayaa uuro baxaysa ilaahay magaaladan ha u saqiro dagaaladan ka soconaya waayahay dhammaan shacabka halkan ku xiran waxa ay markaas u badan yihiin kuwo soo qoraya ilaahay inuu kala qaboojiyo dagaalka oo dadku waxa ay ilaahay u baryayaan in gurceel dagaalka ka socda uu markaasi qaboobo waa maqlaysiin ayaan jeclahay dawladda waa maqlaysiin ayaan jeclahay hubka noocaas la isku adeegsanayo waayahay xabado yaryar markii dhacdo waxaad mooddaa in hal hoobiye markaasi la ridayo ama iyo qoriga suugga loo yaqaano aad loo adeegsanayo waayahay xaaladda ayaa ah mid kacsan xilli waliba dagaalka waa uu xoogaysanayaa khasaaruhuna waa uu sii fara badanayaa xilliga ka dambeeya dhammaan marka saaxiibada halkan ku xidhan bejkan layg iyo filow dhaho si aad wararkii ugu dambeeyey ee galmudug aad ugala socoto iyo xaaladda cakiran ee gurceel oo aynu haatan layfkan uga jirno oo aynu ku sugannahay إن شاء الله هي صاحبي إن شاء الله waayahay xaaladdu ayaa ah mid aad u kacsan xilli walibana dagaalku waa uu sii socon karaa
ilaahay hana amaansado meel khatar ah ayaynu ku sugannahay oo markaasi suuragal tahay in lagu dhex dagaalamo maadaama halka aan ku sugannahay waa dabaq oo 5 biyaana ah waxaana suuragal ah in labada dhinac ciidan ka mid ah uu haweysto inuu dabaqa kor fuulo taasina waxay keeni kartaa in markaasi taasina waxay keeni kartaa in haddii ciidan uu dabaqan aan ku sugannahay uu ka dagaalamo in dagaalku uu sii qaraaraado xaaladuna ay sii halis gasho dadka halkan ku sugan ee aynu annagu ka mid nahnana ay xaaladdeenu halis gasho balse ilaahay ayaan markaasi tala saarannahay xilligeennana xilli noogula darimaa oo qof waliba waa u dhimanayaa ilaahayna ha u naxariisto intii dagaalkan ku dhimatay inta dhaawac ahna ilaahay ha u boogdhayo xaaladda ayaana ah mid halis ah oo xilliba xilliga ka dambayda ka sii daraysa marka dhammaan sheergareeya lifeka aad iyo aad waa xaaladdu waa adag tahay abuwa xagee joogtaa waayahay saaxiibada beejka haddeertaan lifeka daawanaya si toos ay kuu maqlayaan maxaad leedahay si fiican waayahay waa mahadsantaa saaxiib waa isla soconaynaa insha allah waayahay dadkii meeshan ku jiray ayaa dhammaantood baxay waxayna u carareen ama ay u dhaqaaqeen dhanka saldhigga magaalada dabcan ma aqaano xaaladda halkaasi ka jirta balse dadka ayaa dhacay waxaa suuragal ah in inta u dhaxaysa saldhigga iyo halka ay dadka ku sii socdaanba uu dhaawac yaallo laakiin inagu ma xaqiijin karno oo xaaladda amni ee meeshan ayaa ah mid aad u halis ah khatar ayaynu haatanna u bareernay si saaxiibada boggeenna ku xihan ay u helaan wararkii ugu dambeeyey iyo tebinteenna tooska ah iyo xaaladda guriceel sida ay tahay iyo sida ay wax noqon karaan marka sheergareeya si muuqaalka saaxiibbo badan uu gaaro dhallinyaradii hadda yaacday ayaa laamiga ku kala cararaysa waxayna horay u aadayaan dhanka saldhigga magaalada saldhiggu waana halka uu dagaalka ugu badan ka soconayo waana halis si loo galaa dadka shacabka ah badankood waxaa dhaawaco noocan oo kale sababtoo ah markay xabaddu istaagto dadku waxay jecel yihiin in ay laamiga hore u aadaan taasina waa khatar ka dhalan karta in markaasi xabadu ay mar kale fakato oo dadka laamiga ku kala cararaya ay waxyeelo soo gaarto ninkan haddeertaan oo qoriga wato waa shirkadda beder ayuu shaqaalaheeda ka mid yahay labada dhinac ee dagaalamayana kuma jiro waxa uuna ilaalinayaa goobtan oo markaasi dad aad u fara badan ay yimaadeen maadaama ay goobtan taallo hanti aad u fara badan marka xaaladda magaalada ayaa ah mid aad u kacsan dagaalkuna waa uu sii xoogaysan karaa inkastoo haddeertaan dagaalka aad moodid in la isku nastay oo salaadda la isku soo tukanayo balse waxaa xusid mudan in dagaalku uu mar kasta noqon karo mid dhuujiyo badan yeesho oo labada dhinac aada salaaddii adeer haye nabadoon ayaa nala joogo bal ka warran maanta waxaad indhahaada ku aragtay xaaladda magaalada ka warran haye 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 saa wax loo xalli karaa saa dagaalkan maxaa maanta indhahaada ku aragtay hub noocee la isku adeegsanaya haddaad dagaalka kale taqaan si fiican si fiican waayahay bal xaalad haddii sidan ku sii socoto magaalada maxaa ka dhalan kara haye labada ciidan ee ishaaya maxaad ugu baaqaysaa si fiican waayahay bal maadaama aad qoryahay wax ka
badan ee la isku adeegsanayay muxuu ya way waa mahadsan tahay sida aad markaasi inoogu sheegtay xaaladana waan kaaga mahad celinaynaa jawiga magaalada ayaa ah saaxiib yaal mid aad u kacsan waxaana xilli walba la filanayaa in dagaalka uu sii xoogaysto waayahay dadkii ayaa soo kala cararaya markii hore baxay way soo kala cararayaan saaxiib yaal xaaladda ayaa ah mid aad u kacsan dagaalka ayaana sii xoogaysanaya marka inkastoo waa kaa hub nuucyadiisa culus ah la isku adeegsanayaa ciidan fara badan ayaa labada dhinac joogo waa xaaladdu waa adag tahay layfafkeenna dambe ayaynu soo geli doonnaa si aynu idinla socodsiinno wararkii ugu dambeeyey